هاي مقعان محمد عبد الله آدم. هاي قبيل كعب المريحان بان مريحان يا كتاه من ريديني ريدين يا كتاه من روغ عشان مركان ريغا شرماك يا كتاه باه مجرتن. هاي انت كيماتي أنا سوالان كيما هاي انت ميقا كحرنتهي أنتو وحان كحرنا هاي وحان كحرنا أفري تومبري هاي ذا مقعد وهذه قضية حاشا ليلة إيه تهي وأناك محمد سويرة هاي وأناك ري عبد الله هاي وأناك ري حرسيان هاي وأناك ري ورفاء. هاي إن شاء الله هاي soo dhawaada saaxiibayaal waxaan rabaa inaan si yar oo kooban in kaga warbixiyo walaalkan Soomaaliyeed ee sheegtay inuu yahay beeshiisade maalmihii u dambeeyayna baraha ay beeshiisade ku xiriirto aad loo wareejinayay ayaan rabaa inaan warbixin kooban idinka siiyo haddii uu barnaamijkan idin soo gaaro si share gareeya meel fogna gaarsiiya sida la wada og yahay walaalkan Soomaaliyeed ee hadda muuqaalkiisu idin muuqdo balse magaciisa aan la aqoon xerada xagar dheer ayaa laga qabta ciidamada Kenya la qabsaday waa lagu xira gaarisa loo dhaaliciye inta aan gaarisa loo dhaalicin wuxuu sheegta beesha Marixaansade gaar ahaan Reediini gaar ahaan Reewa Sharmaake gaar ahaan Bahma Jeerteen waa ninka aragto daada hadaba Bahma Jeerteen dib ay isugu laabteen warninka intaan leeg oo anagu aan garanayn nagana maqan muxuu ahaa arinta baaritaankeeda socday balse Marixaanka kale waxay sameeyeen lacag ay soo aruuriyeen adoomeydii way gudbisay gaarisa la geeyay barisoonta gaariso baa lagu xira lacag 50,000 oo Kenya bay Marixaanka Nairobi joogay iyo meelaha joogay iska soo aruuriyeen la soo gaarsiiyay Reewa Sharmaake waa soo hadleen Marixaan la dheera alla ka dhiga Reewa Sharmaake ninka intaan leeg Marixaan ma aha reer diini ma aha Reewa Sharmaake ma aha lafta qaasatan Bahma Jeerteen ma aha ninka waa la soo helaa waxa uu noqday beesha Maxamed Subeer ee beelweynta ogaadeel ah ninka sheeganaya inuu yahay Marixaan si loogu soo gurmado oo Reewa Sharmaake Bahma Jeerteen sheeganayo waa nin ogaadeena oo Maxamed Subeer oo laandheere alla ka dhaliyay hadaba Reewa Sharmaake waxay yiraahdeen anagu nama aha waliba Bahma Jeerteen bal intaan idin gelin muuqaal aan idin hayo oo nin oday oo nabadoon ah uu ii soo diray ayaan rabaa inaan sharaxaad yar ka siiyo horta in la caawiyo walaal Soomaaliyeed ma xumo oo hadda lacagtaas 50,000 walaalaas soo sadaqaystay waxayna u aruurinayeen iyo lacag badan oo hadda la soo wadabo inay walaalkood Soomaaliyeed gaar ahaan Marixaan inay sii deystaan ayay rabeen lacagtina ninka waa soo gaartay Marixaan ma huwa nin Maxamed Subeer hatta markii la baaray Marixaan meel uu ka soo galo waa la waayay lacagtaas intii baxsatay waxaan leenahay sadaqo Allah in kaga dhigo laakiin ogaada inuu ninkan Marixaan ahayn ee ogaadeen ka dago Kenya ee laandheeraha ilaa Itoobiya dago ee Maxamed Subeer weeye haday Maxamed Subeer u gurmanayaan haday waa walaalkood inta leeg gaarisuna ku xiran yahay ha soo deysteen hadaba waxaan rabaa inaan si toos ah kugu duwo nabadoon Axmed Maxamuud Magan ahna wakiilka ugaadka beeshiisade ee geeska Afrika fadhigiisuna yahay magaalada Nairobi balse hadda xaalad caafimaad u jira dalka Hindiya nabadoonka ayaan toos kugu duwaayay waa kan nabadoonkii oo warbixinta naga siinay ninkaas noo sharaxayo nabadoon ku soo dhawow waa ku salaamay waxaan joogaa Hindiya Hyderabad guud ahaan ummadda Soomaaliyeed baan salaamayaa gaar ahaan adaa ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib maalmahan wasaabyada waxaa ku jiray yuhuudiyada in sheeganayo Marixaan Reediini Reewa Sharmaake Reewa Ugaas anoo odagii Reewa Ugaas oday Marixaanna oday Reediinina waa Sharmaake odayaashiisa ka mid ah wakiilka ugaaska ee East Africa hadalkaas waa beenteynaya Maxamed Cabdullaahi Aadan uu sheegtay ninkan inuu yahay Reewa Sharmaake ma aha Reewa Sharmaake ninkan waxa la yiraahdo Cabdullaahi Aadan Reewa Sharmaake saddex nin baa ku jirto ama Bahma Jeerteen ama Reewa Ugaas Cabdullaahi Aadan cilmi oo halaqay loo yaqaan
cabdulaahi aadan oo koreeya loo yaqaan cabdulaahi aadan xirsi oo loo yaqaan turjac oo hadda dhintay saddexda odayba waa dhinteen allah u naxariisto wiilashay dhaleenna waa la yaqaanaa cabdulaahi aadan kale ciidanada ku jirana ma jiro gabar nin naga maqanna ma jiro nin annaga ah oo Itoobiya ku guursaday ama ka yimid Caridu disho iyo wiilashu adeerka ka yahay baa jiro adeerka uu yahay waana la yaqaanaa wiilna nagama maqno wiil oday dhalay nagama maqno arrinta waa beereynayna beesha sida waxaan u sheegnaa oo beesha daarood u sheegnaa oo beelaha reediina u sheegnaa oo beelaha reer waasan markaan u sheegnaa nin lixda jir ahaan ahay ogaal ah mana soo baxaysa ninkaas inuu ciidanada yahay